martashada degdegaysan ee halka isugu timid عفيريا أنا أقول قاعدة أقول ديرجوي بالولاية لكن waxaan ku mahadcelinayaa dadka munaasabada soo qabanqaabiyay ee halkan isugu yimid runtii xuskan loo samaynayo sanadguurada labaad ee kasoo wareegatay website Soomaaliyeed amaba reer Ogaadeen ay leeyihiin runtii alla badan haddaan ka baxsho Soomaali oo dhan وسعيد هذا القشة سيدي واقع وريا هاجرتي نبدي يكون هذا ما هو وحنا مقعد كيس مشهد مضيع لسه لكن وحنا ما أنت يكون مصدرية ويب سايت وصل بين يعني وحنا في جنة إن لونش وصل بيو ما متى وصل بيو لكن ويب سايت ما أنت سلطورة لبعض وصل بيو وحفير يا إنه تجد وين هاي الويب سايت إنه كجد وين هاي الويب هذا خليته سوماليات أو سومال استعمارات مدام هاي الويب سايت يكون إلى مدام معنا التواصل بيوم عن سوقه أنت أنا بقول أنا ريما هاسي قدام وحكم هالعلينا يا وهل كان السلام يا دمان ورياش السوماليات بل كستي جوجان ورياش العالم طبعا أنا أقصد واحد الدوران دبادوي كورياش العالم كودان نستا هدي حوجة أنا ديك الشيء ما توقع لو دفعت يا عالم كودان سدح دار بيشن ميدي أو مالك لو استري ورياش العالم إن أي ما توقع إليه سيدا دول بهذا العالم جاي يقوى محلي جاي نصعطان ما أنت أكبر لمحن تيرد نصعطني هذا البيت يدبادوي سنة كان كليا يقول ما أنت بيشي الشهادة مريسو ليه يتوبن وريه أيا عام ودن بيرك الجنسين اللي بقولي يلو أنفر يو إن سنة ولي يبصر ما أو ولي وقت بدل بحري أكيد ما توا سنة كأنه كسر بدري الله بدك يستدعي يقولون تضبط يتضبط في أي عام ودن في رياضي سوماليا يتجاهل هذا كلامه تنعى بوغاديريا طبعا عفيريا هذا كور من الدعوتين وقالوا تنسوا تبين دجاجة داسي وكهذا يو نار كديباتوي كديان دجاجة بجرا إسرائيل إثيوبيا هذا كهذا الله ما أنت وحيا أدون كذا خصية أما بعد كالله هذا هي كم تهاي إن لا يتطور يقوى كلام كم يتريه ويقوى هاكوا إن دولة وده خاص إثيوبيا يقوى أدون كذا يلي تري سياسة ده أنما هبلا ما كلام هذا مركا إن مهمة كان waxaa uu ka sheekaynayo Soomaali beer horumar badan iyo waxyaabo badan haddana markii aan dhageysto dadka gobolada ah ama dadka deegaanka ku dhashay iyagu ka warramaya xaaladda gudaha shaki la gelinaya qaabka horumarka deegaankaasi ka socdo maadaama dowlad wada aragteen baan u malaynayaa hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya dowlad walba warbaahinta codkeeda ku hadasha inta badan waxa ay soo saartaa wanaageeda haddii hataa waddanka qadyo badan iyo dad badan ay dhintaan tacdiye ay jiraan inta badan waxay soo qaataan inta ku muhiimsan ee wanaagga iyo horumarka dalka ka hadlaya dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed maanta waxaan ku hambalyeynaya maalinta qaaliga ah iyadoo tobanka saac marka ay tahay ama afarta galabnimo marka ay tahay wariyaasha dalka Kenya oo dhan isku tagayaan كلفية المجالات أو لقط الدوران معرفة أو وفاية العالم وقد يكسب الدخل الدوران نوع والبقية عبر يا ورياش يجب أن نشوفها نصور في الدوران يجب أن نقدر نقصد الكل الدراية أنا وهذا النهاية وفاية أبقى الصومالي قبل شيء ضل كينيا إذا عدى ضل كنيات وقد يستوى لابد يكون أساسي إذا عدى المسلمين تضل كينيا إليه أو أدراس الإطلاق وهذه أكبر رقم سنة وأنا كنا هاي دبادوي كان يقولوا كداموي كان هذا الصوب الإنسان تعب الإنسان دجاج ينفجرون إن الويب سايت كان حلقة تغيره إن سيدا هذا كوي هاي مستقبل عن حاجة تنا دور كان راديو كان دور كان
telefishin muuqaal oo la iska arko wadadka waxyaabo badan kusoo gudbiya horumarka dadka deegaanka hadlaya jabhadda ONLF markaan ka hadlo kaleeto sanadii 1984 baa la aasaasay oo ay dagaalka kula jirto xukuumadda Itoobiya ay soo waday marka xukuumaddu walibana halganka iyo waxa ay wado aaqirka markay guul ka gaadhaan marka madaxbanaanida deegaanka guul baad ka gaari doontaan marka haddii dalka dibaddiisa iyo gudaha iska xirnaataan waxa weeye saxaafadda markaan ka hadlayo saxaafadda waa seef labada dhinacba wax ku jirta marka dhinaca waxay ku dawaysaa dhinaca waxay ku dumisaan marka idaacaduhu iyo telefishinada iyo websayada laftirkooda waxay ka mid tahay qayb ka mid ah awoodaha lagu dagaalamo dagaalkiina iyo dadaalada aad wadaan sii wadaan aad baad mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwooyin iyo dadka kaleeta ee martishadka iyo wariyaasha halkan jooga waxaan kusoo gabagabaynayaa inaad dadaalkiina aad sii wadaan horumarkana indigu ku jira hadda wariyaal badan waxaan arkaya ka cabanaya howlgallada dalka Kenya ka socda gaar ahaan magaalada Nairobi loogu magacdaray salaama wash la yiraahdo amaba barnaamijkan ilaa amniga dalka lagu sugiyo ay dowladda dalka ay soo ay wadamariyaha wariyaal badan baa wasaaradda xagga arkaya wariyaal cabsi Nairobi ku nool iyo waxa noocaas laakiin wariyaal naqaalo cabsi ku nool ma jirto wariyaashana waxay ka mid yihiin bulshada dalka Kenya ku dhaqan marka waddan walba aad joogtana waxa fiican inaad nidaamkeeda iyo shaqadeeda iyo kala dambeynta iyo amniga dalka aad ilaaliyo annagoo dhan mas-uuliyad baa naga saaran marka dhammaanteed ba waxaan ku dadaalnaya halganka annagoo sii wadayna in haddana amniga dalkan aan joogno ee Kenya oo intaasoo aragto Soomaali ah ama waa qowmiyad meelkastada dalkan lagu soo dhaweeyay in iyaguna aan markaasi amniga dalkooda iyo deegaanada kala shaqeyno iyo horumarkaba intaba aad baad mahadsantahay أبيض يوم سيهي حاج مرسل وكسعودي والباهية الله إذا عدا إذا لك نستوى مقالة نيروبي برنامج كيني فريقا مقرن وحنوك عن هاتين يا قوة سوري وحنوك عن هاتين يا عبد الفتاح شرمل iyo kooxda la jibinayso aan filayo dhammaantiin inaad ka wada heli doontaan iyo fadhi waa adkaysataan